خلق دن وخلقات كجلي أو دلمية أو أف أما أدن وكل دلمية وماشي إسصوت بيا أعماشي سين هل كان يالنا وين وأنا صوشك روح صوشك يستوي مالك هدي ولا ليالو عافية ما جرته مالك هدو يبسن كرو عافية ويبسنها لكن مالك عافية لما يبسده الله سبحانه وتعالى وحسمينا يا بركة عادل وي الضومضني واصح وتصد المذي وانا صوشة قيستي الضومضن بلاش لبدل المايو حقودي إلا قاسية وإلا قاقويو محل السينة يا بركة وحكا السين ما يشتري ما الله قيبي ماشي ميا لاني وحلورنا يا عماشي سي الله قيبي بركة ساكا وحلورنا يا أديقا وكو حمتي صوماه صلاة دي سي قادة ليه صلاة دي بكوت غيا كاسي كو كلا ميشا تاغانا وحو لي يا ربي وانيغنا مالين بو درباحي ادوغنا waxa la leeyahay sadaqadiisi qaado anigana min xoolaha yigiib rabbi waa dhacay oo bil qaystay hadigana waxa la leeyahay xajkiisi qaado anigana rabbi maalin buu sida ii galay isagana waxa la leeyahay umradiisi aduguna la tag markii wixii si la dhamaysto uu soo shaqaystay oo waxba u laabneen wali dad ba taagan oo meeshan oo sugayo wali wax ku leh deyn ba lagu siilay maxaa la sameeyaa rabbi cadaaladiisa subhanahu wa ta'ala u fiirso kuwan uu khaladka ka galay wali waxoodii aan la siinin dambiyadoodiiba inta laga soo qaado waa isaga korka laga saaraya markaas la oranaya naarta u kaxeeya wal billah ya awi saladi awi sonki awi hajki awi a'mashi ya soo nasiib xumo ma wala leeyahay تعب خسارد ولي ينكب بدل ميرت روح انتو سو شقيستي وحي او سو شقيي او دن دن لو قيبيي او hadana muxuu faa'iido uu ka helay wax faa'iido kama helay majlis la fadhiyay iyo meel la fadhiyay inuu maalin kaga sheekay dadkaad ka qoslinaysay waad ku kaftamaysay maadaynaysay dadkii baad wax ka sheegtay khasaaraha ku qabsadayna wuxuu noqday inay sabab u noqdaan inay waxaagiina la siiyo adigana dambigoodii lagu cadaabo waxaan aad uga baqayaa dad badan inay ku dhacdo ilaahay inama tacab khasaariyo subhanahu wa ta'ala laakiin dad badani hadayna isdaba qaban xaalkoodu saasoo ku socda maxaa ka dhici lahaa hadana waxooga acmaalo inoo kala hadha oo wuxuu inooga soo hadan hadan la tagi lahayn maxaa inooga dhici salaadani meel bay ka jaban tahay oo sadaqa badani ma jirto oo dhanka kale macaasidii iyo dunuubtii baynu dhex dabaalanaynaa wuxuu isagoo laga yaababa wax badan inaad meesha la tagin hadana deyn fara badan adoo lagu leeyahay oo lagu haysto khalqi badan la kugu dhageen hadaad meesha tagto waxa warkaagu wax weeyaan oo khuduuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu qabta baa la oranaya malaa'ikta qabta jiida oo naarta xageeda u jiida jahima galiya silsilad dheerna ku xidhxidha thumma fi silsilatin ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه هل كاجليا لو دنيا إنا لله وإنا إليه راجعون خسارة وي waxa la inaga kari la yahay walaalayaal halkaas ay nagu sii wadaa waxaad sameeysan marka hadaad dumar tihiin arabkiinu meel xun buu idin geyn inuu idin geeyna nabi maxamed baa sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabi maxamed oo been sheegin beenna aan ku hadlin waxa uu ku hadlayna wixii rabbigi u sheegay uu yahay baa inoo sheegay oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dumar baa naarta u badnaa markaan soo arkay nabigu sallallahu alayhi wasallam nabigu naarta uu soo arkay jannada uu soo arkay jannada waan soo arkay oo waxa u badnaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam muslimiinta fuqaradooda dadka danleyda ee masaakiinta dadkii tujaarta ay xoolaha lahaana meel baa lagu hayo lagu la xisaabtamayay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam fuqarada iyo masaakiintu iyaga wax laga xisaabiyo ma lehe jannada hore ka gala loornaya qoladan kale laakiin xoolaha leh 500 oo sano bay ka dambaynayaan jannada galitaankeeda ilaa wixii waa la isla xisaabtamay shilinka xageebu ka soo galay xagad ku bixisay seed u isticmaashay seed kugu soo galay xisaabtaasi waa xisaab dheer 500 oo sano oo jannada banaanka ka joogaan fuqaradii iyo masaakiinta iyagu jannada ay dhex dabaalanayaan dadka jannada u badan waa dadka fuqarada abu nabi sallallahu alayhi wasallam naarta markaan fiiriyay oo soo arkan soo daalacdayna dumarka u badnaa abu nabi sallallahu alayhi wasallam markaas ay dumarkii gabadh kamid ah weydiisay waxa tii nabi allah limaada
maxaa naarta ugu badanay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam takthurna la'na wa takfurna al-ashir wala wada qodob afxumada iyo lacnadana waad badisaan carabkiinu ma kontrolla waad iska hadashaan xanti lacnadii caydii aflagaadadii carabkiinu waa iska furay taasi waa sababka koobaad horta naarta idin geliso idin badis sababta labaadna waxa weeyaan wa takfurna al-ashira zawjkiina iyo ninkiina waad ku kufridaan oo waad ku jisaartaan bimaana waxa weeyaan ihsaankiisa iyo samafalka uu sameeyo uma aragtaan wax qiimo leh saas daradeed waa riwaayo kale waxay tiri oo nabigu sallallahu alayhi wasallam hadaad midood dumarka mid kamida hadaad cimrigaaga aad samafal iyo wanaag iyo dadaal iyo dhimanaansho la'aan dadaal meesha ugu dambaysa hadaad oo maalin arintu waxoogaa ka kala fakato waxa lagu oranayaa oo waligaaba ayaa khayr kugu arkay waligaaba dibka oo baan kugu la joognay waa ku dul qaadanay waliga nabi maxaa xumaaday soonigi isku fiicneedo xaashud fiicneedo maanta dambe waxoogaa arintu kala daadatay wax alla wixii wanaag soo jiray oo dhan maalin kasta isku fuuqsanay arin fiican ma aha arin fiican ma rag iyo dumarba wanaaga waa laga mahadnaqaa wuxuu yiri Allah rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah abu nabi sallallahu alayhi wasallam ruux markuu wanaag sameeyo waajibkiisa guto haduu ninkaagu yahay waxa la doonayaa inaad tiraahdo ahsanta aad baad u wanaajisay haweentu haday wanaag sameeyso shaqadeedii ka adkaato wanaagii ay la timaado waa inuu ninkeedu yiraahdo ahsanta wanaag baad sameysay waa in la tashjiiciyo laakiin ruuxa dadaalkii uu la yimid hadii lagu kufriyo la yiraahdo maxaa waxa ma sameeyay waliga waan kugu rafaasanay dib baan ku noola joogtay waliga sidaan baan kugu safraynay warkaasi waa warka naarta loo galo way calo baaya marka carabkan in la ilaaliyo khaasatan dumarka waxa naarta u bariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay waa carabkaas waa xanta waa dadka wax ka sheegaysa waxa loo baahan yahay hadaad doonayso dadka inaad iska dayso xantoodii wax ka sheegooda hal qodob ma ku sheega oo hadaad u fiirsato kugu filan halka qodob wuxuu yahay in alla inta ceeb aad dadka ku sheegaysa in ka badan bad leedahay albar isu fiirso si fiican isugu fiirso waadan iska warhaynin mooyee laakiin hadaad adigu miisaanka isa saarto isu fiirsato inta dadka ku sheegayso iyo in ka badan ba waa ku jiraan waylun likulli humazatin lumazah walaa subhanahu wa ta'ala halaak iyo cadaab iyo ciqaab waxa iska leh ruuxa dadka wax ka sheega oo khalqiga ilaahay dura oo ceebeeya oo uu dhaliishooda raadiya oo iyaga ay ka baxsan waayaan ruuxaas macna wax weeyaan asagii waa isla qumay haduuse isagu dib isu fiiriyo ceebtiisa u soo baxaysa war dadka hadaad jahli ku xamanayso jaahil baad hadaad dadka ku xamanayso ceeb ku xamanayso ceebtii waad leedahay hadaad dadka ku xamanayso yaani wax way akhlaaq xumo waad leedahay hadaad macsiyo iyo dami ku xamanayso waad leedahay inta aad dadka ku xamanayso in ka badan ba waad leedahay laakiin mushkiladu wax way ceebtaadii baa laga qariyay oo ceebtii dadka ayaa ku muuqata ceebtaadii baa laga qariyay ruuxana nasiib xumo waxa ugu filan in ceebtiisa laga qariyo ceebta dadkana u arko saasay macnaha isha ruuxa ishiisu Soomaalidu waxay yiraahdaan maroodigu takarta isaga saaran ma arko laakiin takarta saaran maroodiga kale buu arkaa inta badan takar ma taqana dumarka waaweyn kullu way garanayaan laakiin gabdhaha yararka takar ma yaqaanaan takartu waa cayayaan yar oo yaani waxa weeyaan xoolaha ku dhaga way iyo noolaha banaanka jooga iyo ugaadha iyo ku dhaga takartaas maroodigu midka kale takarta korkiisa saaran buu arkaa laakiin tiisa ma arko ceebtiisa ma arko bini aadamka waa dabeecad uu leeyahay inuu san akin ceebihiisa oo ceebtiisi intuu qarsado dadka ceebahoodii inuu ku foofo markasta oo ceebda leeyahay soo qaado oo dad xamanayso waxaad ogaataa adiga midda aad leedahay baa ka badan waxa kale oo ku talagaleysaan dadka dabagalaya muslimiinta iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumarba ceebahooda oo xamanaya oo wax ka sheegaya waxaad ogaataa ilaahay baa ku dabagalaya subhanahu wa ta'ala nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam